بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب بيال يداو ضيال markii soo dhawaada barnaamijkeeni Maangodol waa fadhigii tobnaad iyo gorfayn iyo wada akhris buug cusub oo kale sagaalkii xalqadood ee hore ama sagaalkii fadhiyay hore waxa dareemayseen in aanu inta badan aanu akhrisan jirnay ama aanu la wadaagi jirnay fikrado kala duwan oo degelo kala duwan iyo deegaano kala duwan adduunka laga soo dhambalay maanta waxa aynu nasiib u helnay inaynu wada akhrisano dirkiisa acmaalada waa buug uu qoray qoraageena caanka ah ee Axmed Ibrahim Cawaale wuxuu ka warramayaa si guud meelka soo jeedka Soomaalida sooyaal ilbaxnimo iyo rumaynba haddaynu yaro dul istaagno qoraaga waa kuma Axmed Ibrahim Cawaale وأحمد إبراهيم عوالة وحوي وقراء أي دمانته وذكرينه آد وعام بحي وهيلنته أفكار الصومالية وأذكر سان قراء لدي سنة كم وقت وصل قروح البدن وسوق جدبيني فكرة كلباء وقلنك وقاضنا يو وقنيهن كحيل دير علومته ديجانك يو علومة حساباتك بدل مكسشقيني لوكينن أما ديجان كينن وإلى سجاشميدي هرانتي دي دبيقة دي حل قاسبة وإلا xilliga wuxuu soo dhex jiray arrimaha samafalka iyo caawinta bulshadeena siyaabo kala duwan noqoto qoraalkuna runtii wuxuu ka mid yahay waxyaabaha uu u soo gudbiyo bulshadiisa kala duwan waxa ka mid ah buugeena aan gacanta ku hayno ee maanta aan waqsanayno dirkiisa acmaalada waxa ka mid ah buugaagtiisa kale caanka ah sitaad waxa ka mid ah qaylodaan deegaan oo laba version ah ama laba nuqul oo midna uu yahay English midna uu yahay Soomaali oo maanta suuqa yaala labaduba waxa ka mid ah maqadinkii xeebaha bari Soomaal sidoo kale waxa ka mid ah buugiisa kale ee The Mystery of Land of Bunt Unrevealed oo ah mawduucan maanta aynu ka hadlayno mawduuc la xiriira oo buug kale oo barbar socda runtii maalin walbana wax ku dhignayo qoraagu inta haddaynu kaga baxno buugaagtiisa waxa jira qoraalo kala fara badan oo aynaan soo koobi karaynin dabcan siyaabo kala duwan baad kula xiriiri kartaan waana la heli karaa waxa weeye xiriirkiisa joogtada haddii maanta aynu yaro dul istaagno haddaba buuggan aynu maanta wada akhrisanayno ee dirkiisa acmaalada waxaynu u qaymin doonaa aniga saaxiibaday oo hadda ila fadhiya waa injineer Ridwaan Suhayb Liibaan iyo Cabdi Fataax oo ila hadlaya qaybaha kala duwan inaynu u kala qaybino qof dhinaca ka eego bal marka hore aynu bilowno mawduuca qaybta ugu xooga weyn ee buuguna runtii aad moodo hordhaca ugu badan inuu ka sameeyo oo ah meelka soo jeedka Soomaalida iyo bal magacaan Soomaali iyo Soomaalida meesha ka soo jeedo iyo jiritaankeyga iyo bal arrimahaasi oo qoraagu inta badan buugga xagga hore ka warramayo bal injineer Ridwaanow wixii kaaga baxayna la wadaag oo maadsan soo dhawow wanda waxay injineer aad baad mahadsantahay aftaa iyo asxaabta kale aad baad mahadsan yihiin sida aad sheegtay Axmed Ibrahim Cawaale waxa weeye waa aqoonyahan ku xildheer arrimaha deegaanka ku xildheerada wuxuu ku darsaday farshaxanimo xagga luqadda iyo afka Soomaaliga inuu farshaxan ku yahay qaab cilmi iyo oo ay yar tahay inta buugaagta loo qoraa ay inagu yar tahay buugaagta Soomaaliga ay ku qoran tahay oo qaab fikir oo aad u qiimo badan oo loo raacay usluub cilmiya ayuu buugan ku qoray dirka acmaalada iyo meelka soo jeed wuxuu markaa buugga ku taabanaya meelka soo jeedka Soomaalida sooyaal ilbaxnimo iyo rumayn saddexdaaba Soomaalidu halkay ka soo jeeday ilbaxnimada ay lahayd iyo waxyaabaha ay rumaysneed ayuu buugga xooga saaraya buugga waxa ku jira aragtiyo kala duwan oo ay bulshada Soomaalida qabto ama cidii wax ka qortay ay qabtay ama bulshada Soomaalida orahaan ama oralahaan ay isku soo gaarsiisay oo ay inba si wuxuu aaminsan tahay inba ay si wax u qabto inba ay meel ay fikirkeedu ay u jeedo marka isagu fikirka dhammaan fikradii Soomaalida jiray inteeda xooga uu soo gudbinaya uu soo minguurinaya qoraaladii laga sameeyay iyo meelihii iyo xigashadiiba uu sameynaya bulshada waan u soo gudbinaya aragtidiisa uu isagu qabana uu ku dhaxtaraya marka dadka akhristada ka qaar ba laga yaabaa inaanay aragtidiisa loo qurux badan uu isna uu ku sheegaya marka hore oranaya aragtida saasay ku dhisan tahay qofka aragti kala haya isaguna doodiisa uu leeyahay marka wuxuu kala duwanaanshihi xagga aragtida ayuu marka hore afeefta horeba uu ku tilmaamaya Soomaali markaynu leenahay kama hadlayo isagoo Soomaalidii ay xoogagii Yurub ay kala qaybsadeen ee loo qaybiyay intan aynu garanayno wuxuu ka hadlayaa Soomaali wax isir Soomaali leeyahay ama Soomaali ku hadlaa
ama isir Soomaali uu jira uu degan yahay guud ahaan mid Itoobiya degan mid Kenya degan mid Soomaaliya degan iyo mid Djibouti degan iyo mid Somaliland joogaba dhammaan isir Soomaali waxa lagu tilmaamaa ay yahay oo ay tahay ayuu ka hadlaya markuu Soomaali ka hadlayo marka dirkan isticmaalada wuxuu ugu abtiranayaa waa Soomaalida guud ahaan ama meelka soo jeedkii Soomaalidii hore sida uu isaguba u dhigayo haddaba intiinaan buugga gelin isaguna uu hordhacaba ku tilmaamayo wuxuu soo qaadanaya su'aal aad u muhiim ah maxaynu uga baahannahay inaynu bulsho sooyaalkeeda taariikheed iyo meelka soo jeedkeeda iyo isirkeeda iyo afkeeda inaynu dib u raacno oo aynu taariikho quruun hore laga soo gudbay aynu dib u galno halka ay ahayd inaynu mustaqbalka iyo u jid bixino timaadada cusub ee ay bulshadaas ay filanayso halkii aynu ku mashquul lahayn wixii dhacay iyo waxyaabihii hore laga soo gudbay jawaabta saddex qodob ku soo ururinaya oo ah Soomaali inaynu baarno sooyaalkeedii taariikheed waxa aynu ama sooyaal bulsho in la baaro waxa laga faa'iidaa saddex mid in bulshada la helo sumada u gaarka ah ay kaga duwan tahay bulshooyinka Ilaahay uu ku nooleysiyay deegaanada kala duwan ee caalamka in la helo horta sumada ay wadaagaan ay leeyihiin sumadaasa bulshada noocaas ay leedahay oo u gaar laba jiritaanka bulsho iyo jiritaankooda yani wuxuu ku dhisan yahay qofku marka uu na ahayn waxa yiraahdaan yani qofku maaha wax geed laga soo jaray oo meel kale lagu taagay waa qof soo taxnaa soo jiray meel ka soo guuray isirkiisu uu meel ku aslan yahay marka in la helaa waxay tilmaamaysaa qofkan jiritaankiisa iyo qofkan ahaanshiisa iyo isku duubnaanta bulsho iyo wada jirka oo marka intaas oo bulsho inta leeg oo Soomaaliya ay ogaato inay isku isirtahay ama isku asal tahay ama ay meel ka wada soo jeedo ama uu Ilaahay meel ku abuuray xikmadda uu ugu wada abuuray uu afka ugu wada sameeyay oo bulsho ka sumad duwan bulshada kale uga dhigay ayaa keenaysa inay wada jir iyo wada qabsi iyo wada noolaansho ay sameystaan iyo qodobka saddexaad oo ah inay hodanimo timaado dadkaas mid kay dad soo jireen ilbaxnimo bay lahaayeen dhaqan bay lahaayeen qaab oo noolaansho lahaayeen bulshada deegaanka ay ku nool yihiin dhibaatooyinka iyo caqabadaha ku soo kordha qaab ay u xaliyaan bay lahaayeen marka in ay jiilba jiil u soo gudbiyo oo jiilashii dambe ay helaan awiyaashood say ugu noolaan dhulkan iyo caqabadaha ay ka soo gudbeen iyo halgankii ay u galeen nolosha inay iyaga soo gaarsiiyaan iyo iyaga dhalaan oo iyaga ku beeraan dhulkan halgankii u galaan inay helaan marka waxa leeyahay hodanimo dhaqan hodanimo af iyo hodanimo qofka Soomaaliga ama qofka bulshada meesha degan ay ku jirto faanid gudeed inuu qofkii ku faano marka sababta loo buugan u dooranay baaba ahayd in yani aynu helno saddexda qaybood ee uu qoraagu uu ka jawaabay haddaba cilmi baaris mar hadaynu qoraagu qaabkeeba u raacay cilmi baaristii saddex qaybood buu afar qaybood buu kala qaaday ayuu u raacay waa kaydad dhigaal qoran oo hore loo qoray oo laga soo bilaabo qarnigii koowaad ee milaadiga ama ay ka horeysay kuwii faraacintu ay qoreen ee hieroglyphiga ku qoran ee Masar laga helayo ama qoraaladii Greegu ay qoreen ama qoraaladii ka dambeeyay ee waqtiyadii ka dambeeyay la qoray wax kasto qoraal kasto oo Soomaali laga sameeyay ama deegaankan dadkii deganaa laga sameeyay ayuu soo minguurinaya degal baaristan dambe ee la sameeyay ama ta hore oo la sameeyay ha noqoto tan la iskeel ay kamid tahay ay kamid tahay dhagax nabadgelyo ay kamid tahay deegaanada ku taxan buurta golis laga helay iyaduna tilmaamaysa in dad xadaarad leh ay ku soo noolayeen deegaankan ayuu adeegsanaya uu soo minguurinaya iyo qaabkay ahaayeen socdaal uu isagu gaala bixiyay bari ilaa galbeed deegaanadan ay silsilada golis ay ku dharan tahay oo isagu maray oo dhulkaas oo dhan uu tagay iyo Mankaashi isagu waxa aragtiyaha iyo qoraalada uu akhriyay wixii oo soo baxay deegashadiisa uu ka soo dheegtay oo maskaxdiisa tuujiyay saddexdaas afarta qaybood ayuu qoraalka u qoriyay maaha qoraal uu iska alifay oo intuu habeen meel fadhiistay uu bilaabay laakiin waa qoraal ku qotama cilmi baaris xeel dheer haddaynu bilowno buugga waxaynu u kala qaadi doonaa Soomaalidu maxay ahayd iyo magaca Soomaali xagu ka soo jeeday haddaynu labada xooga saarno magaca haddaynu ka horeyno magaca afar baa ayaa ilaa 5 aragtiyood baa hore u jiray oo deganayaashii qornaa ee la qoray qarnigii koowaad ilaa dhowr iyo 70-nadii la qoray
uu ka soo dheeganayo ayay u badan yihiin sida qoraalada qaar ay sheegayaan waxa la oday Soomaali la oran jiray oo dadkan ay ka soo tafeemeen ayaa jiray marka saasay Soomaali kala baxeen iyagoo loo nisbeynayo isirka aabahooda Soomaaliga ahaa magaca Soomaali la oran jiray in ereygu erey Carabi ka soo jeedo Samula uu yahay oo oday Soomaaliyeed oo walaalkii isha ka tuuray marka sida ay tafiirtu in ay dadkan odayga ka soo jeedaan sida loogu bixiyay magaca iyo inuu yahay Soomaal xoolaha Soomaal neefka Soomaal yani caano ay tilmaamayso iyo xoolayn bulsho hodan ahayd oo xoolale ay ahayd inay Soomaal ay tahay oo marka loo eego buudi xagga afka meemeyga ay soo ay tahay hilib maalna ay tahay ku nool marka waa hilib ku nool ay tahay marka afka meemeyga oo afka Soomaaliga qayb ka tirsan ah ay loo eego ay tahay dadkii xoolaha ku noolaa marka Soomaal iyo Soomaal marka ama hilib ku nool ama leeyahay ama caano ku nool bay noqonaysaa labadu waxay tilmaamayaan inay Soomaalidu ahayn dad ku hodan xagga xoolaha mid baa oranaysa Sama bintu Tarsam Nagashi oo IM Lewis baa qaba oo fikirka in ay ka soo jeedaan Soomaalida lagu magac daray boqor Xabashiyo oo maamuli jiray oo inantiisa oo Sama la oran jiray oo ugu magac daray Soomaalida marka magacu halka ka soo guuray waa aragtiyaashii waxyaabihii qornaa ee uu ka soo minguriyay haddaba isagoo aragti saddexaad ayuu aragti lixaad oo ka gaar shanta aragtiyood ayuu qabaa isagoo ah inay ahayd bulshada Soomaaliyeed la oran jiray bulshada Sacmaal marka dirkii Sacmaalada halka magacii wuxuu ka soo gudbay waxayna Sacmaal iyada oo ereygan ay deedkan deegaanka ama ereygan Soomaaliga ugu horeeyay la helay qarniga 15aad ee uu qoray boqorka Xabashigu markii uu ka guuleystay boqortooyadii Sacaadiin boqorkii Sacaadiin uu dilay uu qoray fantasiyihii dabaaldegii uu sameeyay boqorka uu ka guuleystay magaca Soomaali qoray wuxuu isagu ku sameeyay magaca Sacmaal in caada la waayay waxa keenaysa Xabashida oo aan ku dhawaaqi karin ereyga caada marka ay Soomaal ay noqotay marka saasay ku soo baxday buu magacu kadaba noqotay magaca Soomaali magacii markii dambe uu isku soo bedelay marka intiinaan u galin hadaba maxaa loo maqli waayay markan Soomaalidu nidhi waa qarni intaas soo sano jirtay oo bulsho intaas oo deegaanka ku dhaqan bay ahayd maxaa magaca loo maqli waayay intiinaan u gudbin aynu gudubno Soomaalidu hadaba xagee ka soo jeeda dhowr aragtiyood baa jira horta Soomaalidu guud ahaan waxa la isku waafaqsan yahay inay ka soo jeeda Xaam Nabi Nuux awlaadiisii Xaam oo ay ka soo jeedo dadkan madowga oo dhan ay ka soo jeedo ayuu ka soo noqday marka dadyoga ugu waxa kamid ah masaarida hore Soomaalida kamid ah Afrikaankan oo dhan waxaan dadka madowga oo dhan baa kamid ah oo ka soo jeeday isirka Xaam marka Xaam laga imaado Soomaalidu hadaba halkee ay asal ahaan ay ku tilmaamaysaa dhowr aragtiyood baa jira in Soomaalidu ka soo jeedo asalkeeda guud ay ahayd ay ku abuurankeedu waxa koonfurta Itoobiya ay ku noolayd dadana ay soo gurtay xagga waqooyiga iyo bariga ay uga soo kacday Itoobiya iyo in ay Soomaalidu deganeed ariga waqooyiga Soomaaliya oo min Boosaaso ka soo bilow ilaa soo gaareen Seylac inta deegaanka ay asal u ahayd Soomaalidu ay deganeed iyo mid kale oo si xadidi taageersan laakiin oranaysa waqooyi bari oo gobolkan aynu xiisameed ilaa Boosaaso inta soo soco deegaanka ay deganeed aragtiyaas waa aragti isku dhow oo sheegayo in bariga Afrika ku nooleed Soomaalidu ay deegaan ay asal ahaan ay ka soo jeedo marka dadka afafka baara afafku waxay kamid yihiin waxyaabaha lagu baaro bulshada isirkeeda halka ka soo abtirsado marka Afro-Asiatic weeyaan ay Soomaalidu ka soo jeeda oo la tilmaami karo in 12 qarni 12 oo sano milaadiga ka hor inuu af jiray uu ahaa ayuu ka soo dhambalmay afafku marka afka waxa la isku yiraahdaa waa shan af oo kamid yahay oo waa Cushitic masaaridii hore galifadii hore Berberiankan ku nool waqooyiga Afrika ku nool afkan Chad leeyahay iyo afka leeyahay Saamiga oo dadkan Carabtii dadkan Shaamiyiintu ay ku hadlaan marka ereyga Soomaaliga afka Soomaaliga wuxuu ku sii qotamaa Cushitiga Cushitigi baa uu kala qaybsamay waqooyiga dhexe galbeed bari iyo koonfur Soomaaligu wuxuu ahaa Cushitiga barigii baa haddana uu kala qaybsamay dadka ku nool jooga hoose iyo dadka jooga dheer ku nool
marka waa dadka buuraleyda ku nool dadka meelaha jooga gaaban ku nool marka Soomaalidu kuwaasi ku jirta waa Soomaalida waa Anfarta waa Oromada waa Sohaha waana waxa la oran kara say kuwa afka ku takhasusay markay baaraan waxaan afka Soomaaliga iyo afka Oromada waxay kala dambalmeen muddo ku siman 3,000 oo qarni 3,000 oo sano ka hor ay laba af oo kala dambalay ay noqdeen afku sidee tilmaamaan inta badan waxay ahayn dad wax soo raacsan marka marba afku marba uu si guuriyay afka la soo gudbiyay haddaba markaynu leenahay Soomaalidu intaas yani aan ku qiyaasayno muddo 12,000 oo sano milaadi ka hor inay ahaayeen bulsho ku nool waxaynu tilmaami doonaa maxaa loo maqli waayay aan ku noqon halka maxaa loo maqli waayay Soomaalida inay Soomaali jirto ama bulsho Soomaali lagu tilmaamay ay jirto waqtiyada loo maqli waayay loo maqlay qarnigii 15aad ahaa waqti aad u dhow saddex sababood buu ku sababeynaya waxa weeyaan Soomaalida oo ahayd Soomaali inta badan xoolo dhaqataa oo aan xeebta ku dararsanayn magaalooyin sida Berbera Seylac Xiis Maydh ay ku yaalaan ay Boosaaso ilaa Kismaayo kale ay ku yaalaan Baraawe ay ahayd Soomaalidu magaalo xeeboodka ay ku yaraayeen laakiin ay u badnaayeen dad xoolo dhaqataa marka maadaama oo qoraayadii ugu horeysay imka buuga la qoro kala qarnigii koobaad oo kale wuxuu tilmaamayaa inay Soomaalidu dadka deegaanka degan xataa imka Khaliij al-Cadan baa leeyahay badan ka horeysay Berbera ee u dhaxaysa Yemen iyo Soomaaliland u dhaxaysa wuxuu aan jiray Khaliij Berber ay ku caan yahay bugaagta hore dadkii degnaa Berbera iyo dadkii deegaanka Berbera ka imanayay dhan waxa la isku yiri Berberian sida ariga imka neefka madaxa madooba loo yiraahdo Berberianka loo yiraahdo saasoo kale sumad uga dhigeen marka magacaasa ku caan baxay deegaankii Soomaalida oo dhan inay dadkaasi yihiin dad Berberian oo Berbera magaca Berbera iyadoo loo nisbeynayo qodobka labaad ee dadkan badmarinada oo aan ahayn dad u soo degi jiray bariga oo soo dhex gali jiray Soomaalida ee ku koobnaan jiray xeebihiina magac ay ku gartaan iyo sumad way heleen marka taasay ku koobsadeen Soomaalida oo ahayd dad aad u rabshad badan u dhicid badan u dirir badan u dagaal badan oo aan dadka soo dhaweyn fiican ka helin in dadkii soo dhex galaan marka markii ugu horeysay sidoo qoraagu qabo markii ugu horeysay ee la helo qoraal qof dhulka ka yimid oo dhulka Soomaali soo dhex maray uu qoro ayaa ahay qarnigii 15aad sida awgeed buu u qormay magaca Soomaalida qarnigii 15aad ma ahayn Soomaalidu wax qarnigii 15aad soo baxay sababtaas ayaa keentay buu yiri marka sababuhu tilmaamay wuxuu inay la iskelo kale wax say ku tilmaameen waxa weeyaan culimadii Faransiiska ee khibradii Faransiiska ee timid waa 7,000 ilaa 5,000 oo sano ayay jirtaa 5,000 oo sano ilaa 7,000 oo sano waa wax ku siman ahdigii faraacinada ay soo gaariyeen ay tilmaamay marka deegaankana Soomaaliin baa deganeed iyo bulshada ku nool marka bulshada ku nooleed baa Soomaaliyeed marka isagu wuxuu oranay waa Soomaalidii hore ee baraxa tirneed ee aan cid kale isii kale soo dhexgelin isir wadaagga Soomaalida iyo Masaarida markuu qoraagu ka hadlayo wuxuu aad u istaagayaa marka hore inuu aad u iftiimiyo qodob muran badan keenay oo ah arladii Punt ama bilaad Punt yahay Soomaaliya yahay ma Eritrea yahay ma Yemen bay ahayd ma sidee qaar ay ku doodaan Uganda yahay ma Suudaan bay ahayd wadamo badan oo muran badan dhaliya ayaa jira laakiin isagu wuxuu tilmaamayaa doodu kuwa kale waxay ku dhisan yihiin arrin falsafadeed iyo soo dheegasho in arrimo taariikhiya ama xoolo ku sawirnaa xilligii ay boqoradii Habshuut ay xilligii ay timid bilaad Punt ay soo siyaaratay sawiradii iyo qoraaladii laga sameeyay in waxyaabaha ku sawiran in wadamada kale laga helo xoogeeda waxa iyagu ay ku doodayaan waa inta laakiin isagu ma jirto dood adkeynaysa waxyaabihii ay soo doonan jirtay ama udugii ay iibsan jireen oo wadamadii kale laga helayo ama ha noqoto Yemen ama ha noqoto Eritrea ama ha noqoto Uganda wadamada wax xoojinaya oo fikir xoojinaya inay wadamadii wixii ay u soo doonan jirtay in halka laga helayo ma jirto marka dhulka Soomaalida waxa ku yaala raadad badan oo la mid ah sidoo soo qaadinaya looda ku sawiran buugta hore ee ama sawirada hore Masaarida ku sawiran iyo loodan la iskeel ku sawiran inay aad isku dhow yihiin qofka xidhan dhar xirashada qofka
masaarida ama qofka masriga hore inuu aad ugu dhow yahay qofka Soomaaliga xilligan noolaaye ku sawirnaa godadkeenan ama xaradadan Soomaalida iyo lagu sameeyay ay aad iskugu dhow yihiin marka meesha kaliya ee laga helayo dagal baaris hadii lagu sameeyo laga heli karo wixii ay boqorada u soo safartay bilaad albunt ay doonaysay waxa kamid ah Soomaaliya oo la helayo imika beeyadii laga helayo oo laga helayo meedigii laga helayo oo laga helayo fooxii laga helayo oo waxyaabihii u dugaayay ay soo doonan jireen ay kaliya ta marka loo saldhigo oo ay tahay doodeedu inay lagana faa'iideeyo doodeeda in aadooda aynu bilaad albunt in Soomaaliya ahayd Soomaalidu in degalka Soomaaliyeed inuu ahaa ardal bunt inuu ahaa oo ay masaaridii hore wuxuu soo doonan jireen waxa weeyaan inay Soomaalidu tahay waxa laga faa'iideeyay in Soomaalidu tahay bulsho ciraq dheer oo ka ciraq dheer ba bulshadii wuxuu soo doonaysay oo soo sheegayo bulshada masaarida wuxuu soo doonaysay oo aaminsaneed inay tahay dhulkii ilaahiyada ama dhulkii ay rahan balada arjaad dhulkii ay aabiyaashood ka soo jeedaan marka wuxuu tilmaamay in Soomaalidu tahay bulsho aad u facweyn dhulka xeebaha Soomaalidu inuu ahaa dhul ganacsi xoogan uu ka socday oo dhaqdhaqaaq ganacsi iyo ay jireen wuxuu tilmaamayaa in mar haddii ganacsi jiray bulshadana bulsho aad u facweyn ahayd meesha ilbaxnimo iyo ay ka jireen nidaam inay arlada Soomaaliga inuu yahay arladii buntka uu yahay in qaab wala bisashada masaarida ee hore iyo Soomaalidii hore ay aad iskugu dhawaayeen lana tilmaami karo say boqoradu sheegayso ay oranayso waxaan tageynaa safarkan waxaan u baxaynaa dhulkii awooyaasha ama dhulkii ilaahiyada ay oranayso inay tahay masaaridu asalkeedii hore inay ka timid masaarida hore faraacintu inay ka timid asalkeedii hore ay ka yimaadeen degalka Soomaalida ama ay Soomaaliba ahaayeen ta inagoo dheeganayna ayuu sheegayaa inay Soomaalida iyo masaaridu isku isirahaayeen oo dad isku dhow dhaqasho ahaan oo xaqii looda ahayd sawiradii qaab muuqi qaab u joogi xataa fircoonkii u dambeeyay la helay inuu lahaa yani malaamix ama qaab Soomaaliyeed xinaha iyo sawirada masaarida waxa ku sawiran qofka ninka madaxa waxba u marsan marka waxa uu marsan wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay xinaha sida sheegayaan culimada ku khibrada dheer leh baarida timaha oo ka helay inay maada casaani ay ku jirto timahooda ay soo ku sheegay inay tahay qoraagu inuu ku sheegay inay noqon karto caada Soomaaligan ay tahay qofka Soomaaliga ee weyn inuu xina isticmaalo inay isticmaali jireen iyaguna saas oo kale xina isticmaali jireen marka inay Soomaalidu iyo masaaridii hore xagga af ahaan marka la sheegay xagga afka la raaco dagal baaris afka lagu sameeyay cilmi baarista afka lagu sameeyay inay noqonayaan laba af oo ku shitago oo meel ka soo wada jeeda in ay noqon karaan masaaridii hore Soomaali ay noqon karaan marka dood baa iyaduna jirta ama Soomaalida masaari faraacintii hore ka soo jeeda ama faraacinta keeba iyaga lahaa taas waa iyaduna waa dood kale laakiin taas waxay tilmaamaysaa in Soomaalidu tahay mujtamac aad facweyn hal qodob baan ku soo koobaya xataa markuu ka hadlayo labadii boqorkii iyo boqoradii bilaad albunt wuxuu ku tilmaamayaa magacan beerah baa qoran iyo ati inuu wuxuu leeyahay waa cotiya iyo bare magacii Soomaali bay ahayn laakiin qoraagii maadaama oo qoraalkii dad ay ajnabi wax qoreen magacii hadba sidii ay dhawaqii ay heleen ayay qoreen marka magacu asliga wuxuu leeyahay waxay u eg tahay inay tahay cotiya iyo bare inta haddaan kusoo dhaafo wuxuu isriixriixii Soomaalidii Oromadu waa dad la faca Soomaalida waa dad ay isku daayihiin isku muddo ay ku wada noolaayeen deegaankan marka labadoodu waxay ku wada dhaqnaayeen koonfurta Itoobiya sida la sheegay leeyahay marna isirka Soomaalida marka la qaato fikradda ay isirka Soomaalidu ka soo jeedo koonfurta Itoobiya oo ku aslan yahay wax weeyaan waxay ahaayeen dad isku meel ku wada koray marka Soomaalidu xaggan uga soo guuray bariga iyo waqooyiga Itoobiya isriixiixa Soomaalida iyo Oromada qodobka markaynu ka hadlayno oo ka hadlayo qoraagu wuxuu tilmaamayaa sida M.I. Lewis uu qabo inay Oromada uga soo horeysay Soomaalida deegaanka laakiin waa aragti kaliya ku kooban wixii qorayaasha kale oo dhan uu ka duwan yahay
keligii bay aragtidaas ka kooban tahay soomaalidu inay oromadu inay deegaankan kaga soo horreysay oo isagu wuxuu qabaa inay soomaalidu ay ka soo guurtay waqooyi bari Soomaaliya deetana ay xaggan u soo guurtay marka deegaankan galbeedka Soomaaliya oo dhan iyo xeeb ilaa xeebta ama ilaa Saylac marka la yiraahdo ay deegaanad Oromo deegaankii hore ay deeganaan jirtay laakiin waa aragti keligii kooban aragtiya kale xoogaa waxay muujinayaan inay Soomaalidu deegaankan deeganayd mar quraata ay Oromadu soo gaadhay oo ahayd markii dawladda Axmed Gurey ay jabtay markaas uu kaleetay Oromadu deegaankan soo gaadhay laakiin inta badan waxay ku koobnayd marka hal xawaala la tilmaamaa inay ahayn xawaalo ay Oromadu leedahay laakiin markii suu Axmed Gurey Cawaaliba sheegay markii dagal baaris balaaran lagu sameeyay xawaalihii iyo dadkii ku aasnaa dib loo baaray waxa la ogaaday inay ahaayeen dad Soomaaliya ay ahaayeen haddaba laba qodob ayaa keentay inay Oromadu ay aad uga durugto oo ay Oromadu deegaankan ku soo dhaweyd xeebta waxa keenay laba qodob baa keenay inay Oromadu aad u durugto isdoorsoonka cimilada oo aad isku bedelay oo dhulkii barwaaqada ahaa isku bedelay durdurada lahaa oo tilmaamaya imika webigan togleer oo kale inuu ahaan jiray durdur weyn webi deegaano badan oo Soomaalida ah inay ka jireen webi ay ka jireen iyo dhul aad u barwaaqa isbedelka cimiladu waxay keentay in ay durkaan Oromadu iyo kororka tirada Soomaalida oo aad u kordhay oo iyaduna keentay isriix bulsho iyo qodobka saddexaad ee aad muhiim ah oo adoonsiga iyo iibida dadka ganacsiga adoonsigu wuxuu ahaa ganacsi aad oo camiran oo waxay tilmaamayaan qorayaashii ku soo beegmay Ibn Battuta oo kale oo tilmaamay in xataa dawladda Soomaalida ka jirtay Saylac oo kale ay cashuur ka qaadi jirtay hal diinaar ay ka qaadi jirtay qof kasta oo adoon oo la dhoofinayo waxaan tilmaami jirnay sanadkii in ilaa 1000 qof laga dhoofin jiray marka adoonsigan suu qoraagu tilmaamayo wuxuu oranayaa Soomaalidu ismay intay adoonsigu wuxuu ku dhisnaa isqafaalasho inta qof kale qafaasho la dhoofiyo oo loo dhoofiyo siiladan carabta oo markii dawladda carabuhu ay hodmeen ahayd dawladii Cabaasiyiinta oo kale ay xoog ahayd ama dawladii ka dambeeyay Cismaaniyiinta oo kale ay Baghdad iyo aagaas ay dhaqaaluhu kororka dhaqaaluhu uu aad u socday ay keenaysay in dad badan loo dhoofiyo marka adoonsigu wuxuu ku dhisnaa inta weer la tago dad la soo qafaasho la diro marka wuxuu tilmaamayaa Soomaalida islaamnimadeedaba inay Soomaalidu islaam wada noqoto waxyaabihii ku sii dhiirigeliyay aad u sii riixay waxa kamid ahay iyada oo aan qofka muslimka aan weerar lagu qaadayn iyo qafaalasho aan midnaba lagu sameeyay oo adoonsigii ay ku yartahay in qof muslim oo deegaana in tala weeraro dad laga soo qafaasho oo u badneyd in gaala inta la weeraro dadka laga soo qabto dib loo iibiyo iyo iyada oo Soomaalidu ay tahay dad isku isira oo abtirsada oo isku abtirsashadaasina ay keenaysa isku xidhnaan iyo isku hiilin oo ay ilaalinaysa inuu qofkii Soomaaliga ahayd si fudud lagu qaato wayna dhici jirtay marmarka qaar ay dad Soomaaliya la dhoofiyo mar waxa jirtay qolo Carabi ay ka xeebtan berbero kale ay ka qaateen dumar hablo badan oo ay xagga imaaraadka kale ay u qaadeen waxa ka daba diray saadintii Soomaalida oo boqorkii oo cabanaya warqadii ay ka daba direen ba ayaa qoraalkeedii la haya marka adoonsigaas wuxuu keenay inay Oromadu freedom maadaama Kristiyaanu badneed inay ay aad uga riixanto deegaankii Soomaalida oo ay dad fogaaday ay noqdaan marka deegaankan Soomaalidu sida ay Soomaalidu deegaanka ku wada gaadhay waxay u badneed waa taas ay ahayd waxaan filayaa hal qodob baa ii dhiman oo aan ku soo gabagabanayaa oo ahayd Soomaalida mar haddii taariikhdeeda inta qoran la hayo ilaa 7,000 oo sano sawirada la hayaa ay tilmaamayaan in Soomaalidu loo dhaqasho ay lahayd maxaa geela ay Soomaalidu faanidan geela iyo ay qodobka ay xilmay soo gashay geelo dhaqashada geela wuxuu tilmaamayaa qoraagu inay soo gashay doorsoonka cimiladu inuu kow ka ahaa maadaama oo baadkii iyo biyihiiba ay ku yaraadeen deegaanka Soomaaliyeed in ay dadkii Soomaalida ahayd wax cimiladii la qabsanaya ay keeneen marka sida la qabo sida qorayaasha qaar qabaan inuu 3,000 oo sano ka hor uu geelu ka soo talaabay jasiiradda Carabeed oo waliba koonfurta Yemen oo ka soo talaabay oo aynu isku qaab u dhaqano geela oo ahayd iyagu Yemen iyo inagu waxaan u wada dhaqanaa geela manfac caadi caana ayaynu isticmaalnaa awrta oo quraatayna rarasho isticmaalnaa
xagga aaga saxaraha ama saxaraan ka hooseeya waqooyiga ku yaala waqooyiga Afrika ama noqo ama saxaraan ha noqdo jasiiradda carabta ku yaala iyagu waxay geela xoolaha geela waxay aad ugu isticmaalaan rarasho iyo fuuli oo xataa geela markuu la socdo ninka oo uu ilaalinayo uu fuushin yahay halkan deegaankan ay tahay qofka geela geel jiree geela la socda inuu noqdo qof dhulka socda oo aan geeli geela rarashada ama reerka lagu rarayo ama dhaanka loo rarayo un kuwaas oo rarashada lagu koobo marka wuxuu tilmaamayaa in xataa imka halkan laasgeel haddana ma tilmaamayso wax sawir geeli inuu ku yaalo meesha wax sawirada ku yaalo oo dhan waa lo laakiin wuxuu sheegayaa magacu inuu xilli dambe uu doorsoon ku yimid magacu isbedelay sawirada ugu badan ee la hayo ee geela laga hayaa waxa ugu taariikh dheer 2000 oo sano 2000 oo sano ka hor yani waa bilowgii miilaadiyadu in xilligaa geel yani degal ay ku sawirnaayeen la helay marka inaha san ku soo koobaya waana mahadsantii waan ku dheeraadan ku leeyahay aad mahadsan tahay injineer Ridwaan runtii ku dheeraanshaha waxa keenaya in mawduuca qaybtiisa hor runtii ahayd inta ugu ballaaran ee salka u dhigaysa fikradda sooyaalka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo maxaan ku raacay magaca qowmiyaddan guud ahaanba waa runtii qoraaguna waxa weeye sad soo koobtay aad buu uga faahfaahinaya waxa weeye ay ka sii xeelo marka adigu dheeraasha keentay haddana dabcan qofka akhristihi waxa laga yaabaa inuu marka ka sii heli doono faa'iido kale ballaaran ku buuga sii dhex galo sida uu sii tibaaxay injineer Ridwaan haddana qoraagu uu ka gudbaya qaybtaas oo jirka wuxuu wareegaya ama sooyaalka waxaad moodaa inuu u wareegayo bulshada dhexdeeda maadaama tiri asalba lagu lahaa ay ku lahaayeen Soomaalidu deegaankan oo 7,000 sano ka hor bal ay deganayeen haddana qoraagu wuxuu taabanayaa maxaa keenay barxanka isirka Soomaaliyeed Suhayb bal adoo qodobka eegaya iyo maxaad ku dari lahaydaan soo dhaw su'aasha cabdi xadiidis waxa weeye qoraagu ku soo qaadanaya qaybta labaad ee buugga oo magac dhigay barxanka isirka Soomaaliyeed oo uu ku eegayo sidee uu sawircay isirka Soomaaliyeed ee ka soo jeeday Kushtigu oo ugu barxamay maxay ahayd ama ugu taraxmay sirra kale isagoo uu raadinaya jawaab erayga weydiintan maxay ka jira carruurnimada Soomaalida iyo qodob kaasi daba yaalo oo kala duwanaanshaha dhaqan ee labada qowmiyadood ee Carabta iyo Soomaalida afaf ahaan qoraagu wuxuu tilmaamayaa in barxanka isirka Soomaaliyeed uu soo jiitimayay muddo dheer laakiin waqtigan imika lagu jiro uu ugu culus yahay sida xawliga ugu socdo taasoo ay keentay ama ay sababayso meegaareynta dunida ama waxaan globalization kala yiraahdo oo sahashay isku socodka caalamka iyo dhaqano kala duwan iyo isirro kala duwan inay isku yimaadaan oo isla falgalaan oo wada dhaqmaan iyo qaxa iyo barakaca ay Soomaalidu ku jirtay waayahan dambe ilaa laga soo laabo 13 abaartii daba dheer ee Soomaali badan dhulka Carbeed tagtay ilaa maanta ay sida xawliga ugu socdaan maxay ahayd dunida meel kasta ka dhaceen qoraagu wuxuu ku noqonayaa ama ka bilaabayaa dhacdooyin taariikheed oo xilli hore dhacay oo la oran karayo waa bilowgii in isirka Soomaaliyeed ay dad kale isdhex galaan waxa weeye waa qarnigii 7aad ee hijriga oo noqon karaya qarnigii 12aad ee miilaadiga markii ama qalalaasii ka dhex taagnaa ama wiyiinta iyo cabaasiyiinta oo kolba qolo magaraanaysa la jibinayay marka qolada laga adkaada ay u soo qaxaysay xeebahan galbeedka Afrika ee Soomaaliyeed iyo qarnigii 9aad oo ay soo baxday jamaacadii loo jiray qaraamidada oo qaabkan daacisho kale u shaqeynaysay dadka aad u gumaadaysay dad badan leeyahay oo qoraagu tilmaamayay inay ka soo qaxeen kumoomiyaal qof oo Carbeed ay ka soo qaxeen oo ay degeen labada magaalo ee Baraawe iyo Warsheekh taa marka laga yimaado qoraagu waxa kale oo tilmaamaya dhacdo kale oo taariikheed oo la oran karayo isirka Soomaaliyeed ayuu ka yimi barxan ama dad kale isdhex galeen la oran karayo waa hore la oran karayo way dhacday oo in qodob ku tilmaamay qoraagu xeebaha dhulka Soomaaliyeed ee waqooyi iyo koonfureed inay taariikh hore ay ahaayeen xarun ganacsi oo isku xidha badda cas iyo Masar ilaa Yurub ilaa Asia isku xidha oo taasoo markaa keeni karaysa maadaama ay xuduun ganacsi tahay inay dadyo kala duwan oo isra kala duwan ka soo jeedaan ay yimaadaan oo keeni karaysa in xagga isla falgal ay ka yimaadaan isirkii Soomaalida iyo isra kale
xagga qoraagu tusaale usoo qaadanaya hees ciyaareed magaca uu ku jiro Colombo oo ah caasimadda Sri Lanka oo ku taala jidkan loo sii maro Shiinaha heestu waxay odhanaysaa heliliwambe haya Colombo kusuge haya Colombo indha xariire indha qumaashay haya Colombo marka qoraagu xagga wax kala soo dhaxbaxaya wuxuu leeyahay haya Colombadaas waxa weeye waa iyadoo si khaldan lagu yaro dhawaaqay laakiin waa ereyga Colombo oo caasimadda Sri Lanka ah marka qoraagu xagga wax ku tilmaamaya waa nin badmareen ahaa oo reer Sri Lanka ahaa oo deganaa Seylac oo markaa u hiloobay gabadh garanaysa oo jeclaayo Colombo joogta oo markaa u dirayo heestaa u dirayo marka xaggan waxaan ka qaadan karaynaa in waqtiyada hore ay dhici karto in isirka Soomaaliyeed aynu oran karno waqtiyada hore soo bilowday in ku barxamo isirka kale intaas waa iska afeef hore qoraagu wuxuu u soo galayaa inuu marka barxanka Soomaaliyeed laga hadlayo arrinka koowaad wax weeye tan carabnimada Soomaaliyeed in magaranaysa oo dood badan dhalso oo arrin aad magaranaysa doodiisu u taagan tahay ayuu qoraagu isku dayayaa inuu ka jawaabo wuxuu qabaa in xiriirka ka dhaxeeya horta bilow ahaanba imaatinka islaamka diinta islaamka dhulkan Soomaaliyeed iyo sheegashada in la sheegtay in carab laga soo jeedaa in isla socdeen ama isku yimaadeen qoraagu wuxuu dhaqan ahaan sheegayaa in jirtay haddii wadaadku uu doono inuu samaysto koox diineed ama jamaaca diiniya ama dariiqooyinka waxa Soomaaliga lagu oran jiray sidii Axmadiyada ama Raaficiyada ama dariiqooyinka la midka ahaa inuu shardi u ahayd ninka madaxda u noqonaya inuu saadada magaranaysa hayb ahaan ama atris ahaan xagga u galayo saadada oo ama iskala marka loo dhigo ashraaf la yiraahdo oo ah tafiirti Xasan iyo Xuseen oo ilmo Ali bin Abi Talib oo dhanka kalena Faaduma ay dhashay Faaduma bint Nabi ay dhashay alayhi salaatu wassalaam marka xagga qoraagu wuxuu sheegayaa in qoraagu ninka wadaadkii magaranaysa dariiqada doonayeen madax ka noqdaa inuu tixgelin iyo soo joogsi helayo marka la yiraahdo ninkan waa wadaado waa saado wax ka soo talaabay badda oo taas waxay ka qayb badan in la yiraahdo waa wadaad hebelo waa in hebelo abihi baa geer qadaha marka ma helayo maxay ahayd haybadiisa iyo magaranaysa makaanadiisu waxa uga qayb badan in la yiraahdo waa badda ka soo talaabay oo saadada ah qoraagu wuxuu tilmaamayaa intaas oo dhan wuxuu afeefanayaa qodob aan u tagi doono laakiin wuxuu leeyahay haybta iyo aftirsinta oo la bedelaa waxa keena danab fara badan oo ay ka mid tahay iskaashan buurs Soomaalina oo tiraahda ama buur ahow ama buur ku tiirsanow qoraagu tusaale kale xagga sheegaya oo ah in mararka qaar aftirsinta dhabta ah iyo intimaaga diiniga qofku uu leeyahay in isdhexgali karayaan oo la isku bedelan karayo tusaale soo qaadanaya boqor xabashi ahaa oo aad u dhawaan oo la ku saabqo 20 noola oo lij iyaasu la oranayay oo aftirsintiisa nabiga geliyay nabiguba toos aftirsintiisa ugu daray markuu islaamay qoraagu waxa kale oo sheegaya tusaale kale oo iskaanshaan buursi oo ka dhaxad in haybta la bedeli karayo mararka qaarkood iyadoo dana kala duwan laga leeyahay waxa weeye colaadihii Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxeeyay 70-nadii Maxamed Siyaad Barre inuu sameeyay majara habaabin haybeed oo 3 bahood oo ku shitay soo jeeday inuu Soomaalida hoos keeno oo oromadii muslimka ahayd Soomaali abo u bixiyay iyo canfartii oo yiri Soomaali ayka iyo Soomaalida soo ahayd oo yiri Soomaali wariya qoraagu marka intaas oo afeefas ka ahayd wuxuu doonayay inuu soo gaaro pointigan in ay magaranaysa awiyasha carbeed magaranaysa la sheega maanta inay Soomaalida maanta dhulkan ku dhaqan inay ka tafiirantay inay ahaayeen awiyaal ruuxiya ee ahayn awiyaal biology oo ficlan dhalay dadkan maanta joogay tirada badan kul hadii iyagu ay faafinayeen diinta islaamka iyo dariiqooyinkiiba ay wateen dadku ay jecleysteen qaabkii wax u wadeen iyo dhaqankoogii iyo magaranaysa akhlaaqdoodii dadku ay jecleysteen kadibna lagu arooriyayba aftirsintu iyaga la geliyay qoraagu xagga wuxuu yara faaleynayaa sheekadan caanka Soomaalida ku dhax 44 ka wadaad ee badda Berbera ka soo degay marka qarnigii 14aad marka xagga dhowr su'aalood ayuu isku weydiinayo wuxuu odhanaya horta lama sheegin 44 ka wadaad inay xasas wateen marka halka waxa imanaya dadkii ay la xidideen ay ka guursadeen maxay ahaayeen oromay ahaayeen Soomaali hadda Soomaali ahaayeen dadka halkay qabteen sidii hindida asaasabay dabar go'eeno xanuuno iyo lagu laayay iyo colaad lamana sheegin taariikhdana ma sheegin colaado waqtigeeda dhacay ama dabar go'eeno waqtigeeda dhacay xagga dood kale ayaa barbar taalo qoraagu yar carababaya oo
ma laga yaabaaba culummadan Soomaaliyeed ee wadaadadan Soomaaliyeed ee la sheegay inay Soomaaliba ahaayeen xaga qoraaga wax soo qaadanaya nin kale oo kurutan la yiraahdo oo qoraa ah oo socdaal ku kala bixiyay ariga Soomaaliyeed 1848 ilaa 1840 ilaa 1840 ayaa wuxuu qoray buug la yiraahdo Memories on the Western Edo Tribe wuxuu ku sheegay wadaadkan maanta aanu naqaano inuu wadaad Carbeed yahay sheekh oo barxad leh inuu ahaa qudbigiisu ku yaalo koonfurta bari ee magaalada Berbera sheekh oo barxad loo maanta dad badan ay yaqaanaan inuu ahaa wadaad Carbeed wuxuu sheegayaa qoraagu inuu magaranaysa ahaa soo xiganaya ninka kale kurutan dar inuu ahaa beesha garxajis ee Sheekh Isxaaq marka halkaas su'aalo kale ayaa la gelin karayaa wadaado kale oo badan magaranaysa carabnimadooda la gelin karayaa su'aal wuxuu u gudbayaa qoraagu inuu isweydiiyo maxaa keenay dareenkan ah in diinta islaamka in dareenkan la sheeganayo carabnimada ama sheegashada carbeed in Soomaalidu ay carab yihiin bilow ahaan wuxuu ku fasirayaa taa inay tahay diinta islaamku inay tahay waxa koobaad caadifada diineed ee islaamka inay tahay waxa koobaad ee ka ciyaaray doorka in ay Soomaalidu carab sheegato taa waxaan ku yara dhex darsan karayaa in waliba waqtiyada qarnigii 13aad la sheegay in wadada carbeed halkan yimaadeen in caalam islaami ka tirisay dowladda Faatimiya oo marka caadifad jacaylo weyn u sii haysa aalka nabiga iyo qaraabadiisa marka xagga la socon karaya door kale ay ku sii lahayd qoraa wax kale oo sheegaya arin kale oo door ka ciyaaray in ay dadka Soomaaliyeed haybtooda galiyaan isirka Soomaaliyeed isirka Carbeed oo ah isticmaalkii reer Yurub ee dhulka Soomaaliyeed kala qaybiyay ayaa wuxuu keenay dareenkii ahaa ama buur ku tirsan oo markaas saasa carabta loo sheegtay qoraa wuxuu gudbayaa inuu ka waramo kala tirsaanta dhaqan ee carabta iyo Soomaalida bilow ahaan waxa koobaad u dhaxeeya horta waa afkade laba luqadood oo laba buhood oo aad u kala fog ka soo kala jeeda ay kala hadlaan qowmiyadda Soomaaliyeed iyo qowmiyadda Carbeed arin kale ay qoraagu faaleenayo oo ah inay dawladda Soomaaliya la isku oran jiray iyo dawladda Djibouti la yiraahdo inay xubno ka yihiin jaamacadda Carbeed taasina ay keentay dana siyaasadeed oo loolanka carabta iyo Israa'iil ka dhex taagan iyo dhan kale Masar iyo Suudaan oo dhinaca iyo Itoobiya iyo loolan saas isagoo ka dhaxayo inay markaas ku dayaan inay Soomaaliya xilifkooga ama dhankooga soo diraan marka inuu wadaagna diinta islaamka laakiin wax kale oo mubariraad kale oo dhaqan ama wax kale lama helin aan siyaasadda ka ahayn qoraa wuxuu faaleenayaa arin kale oo Soomaalidu iyagoo jecel inay ku abtirsato carabta ama isirka Carbeed haddana dhaqan ahaan way yastaa oo magaranaysa weelida wuxuu qoraagu sheegayaa ninka reer magaalkii markuu taan miyiga booqasho kale ku tago in la yiraahdo ninkan waa carabe maxaa wax looga diri iyagoo isku yara xidhaya arin kale qoraagu sheegayo oo Soomaalida sooca iyo Soomaalidan la sheegay inay carab ku abtirsadaan inay muuqaal ahaan aynan farq u dhaxayn in ay dad isku nooc ah yihiin arin kale oo dhaqan oo u dhaxaya farqi ah oo Soomaalida iyo carabta u dhaxaya oo ah ka guursashada in adeerta ama waxaan carabtu dhahdaan zawaaj bint al-aam oo carabta agtooda kale miisaan wax dhaqankooda ku weyn ah laakiin Soomaalidu aynan arinka lahayn oo ay u yaqaaneen isku guuriyo soo noqosho wax aan gobonimo ahayn ay u yaqaaneen laakiin taas imika way ka dhacdaa dhulka Soomaaliyeed qoraagana wuxuu ku fasirayaa ama ku saweynaya in ay keentay xasaradaha beelaha ka dhacay in munaasaba ay keentay in qodob kasta gaar isku urursato gaarna isku ururso dhanka kalena in xarakaadka diiniga naga yimi dhanka Carbeed buugisa sitaadka ayaa ku sheegaya qoraagu markuu soo gabagabeeyo xoranaya sitaadka maanta uu ku si gabaabsi ku sii dhulka Soomaaliyeed marka maxaa sabay marka wuxuu leeyahay tsunami-ga munaasaba wadadada Carbeed ka soo ka yimi dhulka Carbeed wadadada Soomaaliyeed dhulka Carbeed ka yimi ayaa door ka ciyaaray in wixii hore Soomaalidu haysatay inay ku sheegaan jaahiliya dhaqankeeda Carbeed ee garbaha ku wateena inay ka dhigaan wax suuban oo ay dadka Soomaaliyeed keenaan intaasaan ku soo koobayaa qaybta labaad ee buugga aad iyo aad baad mahadsantahay Suhayb dabcan si fiican baad soo koobtay qaybta dhexe ee uu qoraagu ku la fagurayay barxanka isirka Soomaaliyeed iyo sababihii kalifay iyo duruufta ku xeeranba mar kale Liban soo dhawow waxaad moodaa in uu ilaa hadda aynu ku sii dhownahay xagga gabagabadii buugga aynu dakhsananay maanta fadhigeena inuu ku saabsan yahay qaybtan aad isleeyahay adigu aad wax looga sheegtid waxa weeye waa qaybta saddexaad ee saanfilayo maxay buugga qoraagu aad moodo inuu ku la fagurayo rumayntii iyo caqiidooyinkii
bulshada Soomaaliyeed marka la eego sooyaalka intaa leeg bal maxaad oga sheegi lahayd maxaad ka xusi lahayd waxaad aragtay ama ka fahantay qoraalkiisa ka fahantay aad baad u mahadsantahay Cabditax guud ahaan intaan qaybta u gelin waxaan jeclaan lahaa inaan buddig uga yar dhigo fikrad guud oo ah buugu fikradu xambaarsan yahay kali ahaantii aan waxaan u qabaa inuu yahay buug fikrad aad u weyn oo runtii tolmoon xambaarsan oo aan ku tilmaami karo waa dib ugu noqoshadii miirka in bal dadka loo soo celiyo asalkoogii hore in fikradan u nasab sheegashada ummad inala da'a inala faca inala jaara meesha ma laga saaro oo runtii dee daliiladoo dhanba ay tilmaamayaan xaggoogana xagga fikradana loo wada socdo meelka soo jeedka Soomaalida guud ahaan waa mushkilad amba dhibaato identity-ga amba hooyada ummadda Soomaaliyeed bay ku tahay meel kastoo ay joogaan waa ummad ilaa maanta garan la meel ay u nisba sheegtaan oo iyagina Afrikaan iskuma haystaan Afrikaankiina iyagii Afrikaan uma haystaan dadkii ay u nisba sheeganayeen ee Carabtiina Carabnimo uma haystaan waxa la yiraahdaa marka la doonayo u nasab sheegashada hooyad kale waa in saddex qodob ma laga helaa qodobka koobaad waa sheegasho aad sheeganayso in dadka aad la mac tahay amba aad ka soo jeedo amba aad isku isir tihiin iyo buuda ummadaasi oo aynu ku tilmaamayno maadaama inagu aynu sheeganayno ummadda Carbeed buuda ummadda Carbeed waa jasiiradnimada Carbeed ee Sacuudiga iyo Yemen iyo ummadaha in buuda xadaaradaasi amba dadkaasina ay aqbalaan sheegashada aad sheeganayso qodobka saddexaad oo dadkii kale dadkii kula jaarka ahaa dadkii qalaad dadkii kale aad kala duwaneydeen aad kala luqad duwaneydeen aad iskula nooleydeen adduunkan in iyaguna sheegashadaada ay u aqbalaan in sheegasho dhab ay tahay maanta saddexdaa shardiba amba saddexdaa qodobba sheegashadeena carabnimada kuma suurtagelayaan amba lagama helayo waa midda koobaad ee sheegashadeenan aynu sheeganay in ummadda Carbeed aynu ku abtirsano amba aynu ka mid nahay amba Soomaalidu inay Carab tahay buudii ummadda Carbeed inama ogolo marta ninka Sacuudiga amba ninka Yemeniga hadaad ku tiraaca Carab baan hay uu ku qoslayaade Afrikaankii kale aynu jaarka ahayn amba aynu la deganayn amba aynu ka soo jeedinay hadaad tiraaca Carab baan hay isaga laftiisu waa ma ku qoslaya inaga dhexdeena xataa markaad sheeganayso uma sheeganaysid si kalsooni ay ku jirto laakiin waxaad u sheeganaysaa adoo madaxa hoos u liigaya taasi calaamad su'aal badan bay saaraysaa in aad sheeganaysaa yahay wax saxaba maadaama ninkaad u sheeganaysid inuu ku ogoleen kii aad ka sheeganaysidna uuna ku ogoleen carabnimada Soomaalidu waxay u adeegsataa un faan iyo markay ay iska sarreysiinayso ninka kale Soomaaliga xataa inagu marka nin Soomaaliya kale aad doonaysid inaad ka faanto amba aad u faanto waxaad u faanaysaa inaad adigu Carab ka soo jeedo isna Afrikaan yahay Afrikaanimada isaga aad ku sheegaysaa ma aha inaad Soomaalinimada aad ka saarayso waxaad ka saaraysaa Soomaalinimada halkay ku aroorto ee Carabnimada waxaan soo nimanka Carab ma aha waa niman Afrikaana markaan dib badan oo taagan buugani xalinaya markii koobaadna ma aha qoro Soomaaliyeed uu isku dayo in bal dadka miyirkii loo soo celiyo in bal dadka la yiraahdo war ummadani dhowr kun oo sanadood bay halkan deganeed ummad soo tacabirtay ma aha ummad afar odayo soo tacabiray amba dhowr odayo soo tacabirayo lahaa awood la yaabo taran ay ummad ay dhaleen ma aha marka buugu fikradda guud buu xambaarsan yahay qaybta buugga ku qoranay rumayntii Soomaalidu ay aaminsanayd wuxuu qoruhu qabaa in maadaama Soomaalidu ay tahay ummad dhowr kun oo sanadood meeshan ku nooleed dhowr kun ka sanadoodba ay la jaarhaayeen ummadada maanta taariikhdooda ay qoran tahay oo faraacinadu ay ka mid tahay ummadda Carbeed ay ma ka mid tahay inay rumayno kala duwan degalkan Soomaaliyeed ay soo mareen rumayntii ugu horeysay waa rumayn waxay ahayd rumayn deegaan oo iska bidaa iyo primitive oo in Soomaalidu ay aaminsanaayeen diinta waaq oo erey Ilaahay ka turjumaya rumayntaas oo ahayd Soomaalidu inay weligeedba bilaadiin ay noqonay diinta ay haysteen diintaasina diin samaawiye ma ahayne diin degalka Soomaaliyeed iyo degalada dadka Soomaalida ay isku isirkeen amba ay isugu dhawiyeen af ahaan iyo midab ahaan iyo deegaan ahaanba ay wada aaminsanaayeen buu ahaa marka diintaasi waa diintii ugu horeysay boonayna waaq wax meelaha ay ku sii hadhay iminka waxay ku sii hadhay deegaanada qaar bay deegaanooyin magaalo sida Caabud Waaq Ceel Waaq oo kale ereyga waxaad ka turjumaysaa magaalooyinkaasi inay ka turjumayeen diintii ummadda magaalooyinka deganay ay haysteen meelo kale waxay ku sii hadhayba
isir amba magacyo reereed reero magacooda imika erigaa waaq uu ku jira marka diintaasi waa diintii ugu horeysay ummadda Soomaaliyeed amba dadka Soomaalida ay aaminsanaayeen bahan ereyada ay ka muuqato kale markay u nisba sheegayaan barwaaqado kale waa dhibcihii Ilaahay yani markay deegaanka lagu doonayo in lagu tilmaamo waa bar iyo waaq waa laba erey oo la isku dhuftay way waxay ka turjumaysaa oo oranaya dhibcihii Ilaahay amba barwaaqadii Ilaahay tiyo halka ay ka muuqato tawxiid waxa ka muuqda in barwaaqadan iyo nimcadan iyo baraarahan oo dadku ku jiro amba deegaankan lagu tilmaamayo in loo nisba sheegto amba loo celiyo Ilaahay diintii labaad ee cariga Soomaaliyeed soo gashay buu oranaya qoruhu waa diinta Yuhuudda amba Cibraaniyada kaasoo aad moodo inuu uga dhigayo dhidib amba uga dhigayo daliil in maadaama diinta Yuhuudda Ethiopia ay maka jirtay ayna ka horeysay diintan Kiristaanka amba Masiixiyada maadaama Ethiopia iyo Soomaaliduna ardul xabash la isku oran jiray oo dad jaar ay ahaayeen diintu halka ay uga timid taana waxa baritaar u noqon kara wuxuu oranayaa meelihii laga isticmaali jiray oo bucur bacayr halku joogo hadee qudbigan dooxan oo barkhad loo kale halku mamlakadiisa ama dawladdiisa ay ahayd ninka lagu tilmaami jiray inuu ahaa wadaad weyn oo falalow diinta Yahuudiga haysta halkaasay ahayd buu oranayaa sheeko waxa jira sheeko faneed amba sheeko Soomaaliyeed ay Soomaalidu badan ay iskaga sheekayso bucur bacayr iyo markii Sheekh Yuusuf al-Kawnayn ay magaalada yimid amba sheekha qudbiga ku aasanay ay isku qabteen tala ku hayntii magaalada amba ay isku qabteen xukunkii bulshada ay u yimaadeen dabeeto ay isku waafaqeen in isku buruud dhigtaan oo markii dambe sheekh uu kaga guuleystayba oo barkhad leh uu kaga guuleystayba ninkii bucur bacayr ahaayo uu ku xiray buur magaalada ku taala astaamaha amba cadaymaha u adeegsanaya inay diinta Cibraaniyadu ay Soomaalidu ay aaminsanayeen waxa kamid ah xabaalo xidigtii Daawud ma laga helay inkastoo oranayo xidigta Daawud qarniga 17aad bay noqotay astaan diineed oo dadka Yuhuudda aaminsanay ay isticmaalaan Soomaaliduna doodiisa marka la eego qarniga 17aad way ka horeysay kumanaan kun sano ay degalkan deganeen marka qarniga 17aad haday noqotay xidigta Daawud astaan kamid ah astaamaha Yuhuudda ma dhigayso in xidigta meel laga helay in loo nisba sheegto amba lagu xiriiriyo Yuhuudda inkastoo meel ku oranayo reer Yurub ka bari waliba qaar kamid ah ayaa qarnigii 12aad ayuu ahayd astaan diineed magacyo kale jiro magan iyo kaahin iyo isxaaq iyo magacyadaas oranaya waa magacyo dadka Soomaalida amba gaar ahaan waqooyiga degan ilaa silsiladan buuraha golis ay adeegsadaan adeegsigaasina uu ka dhigay in dhaqankan amba diintan ay ahayd diin dadkan ay aaminsan inkastoo in magac adeegsigiisu lagu nisbeeyo theory dhan amba aragti dhan oo la xiriidha meel ka soo jeed ummadan ayna ahayn waxa caga adag ku taagan laakiin waa qodobada ugu muhiimsan ee uu ku daliilinayo inay diinta Yuhuudda amba Tawraadu ay ahayd mid kamid ah rumayntii Soomaalidii hore ay aaminsanaayeen diintii saddexaad oo diimaha laga rumaysnaa degalka Soomaaliyeed wuxuu qoruhu ku sheegayaa inay tahay diinta Masiixiyadda amba Christianity-ga diintaasoo fadhigeegu ahaa amba halkii ay ka soo bilaabantay oo oranay xeebahay marka soo gashay mar kalena loo oran karaba Ethiopia ka timid maadaama Ethiopia ay diintan ahayd diin qadiim dadka Ethiopiaanka ay haystaan laakiin jasiiradda u dhow cariga Soomaaliyeed oo 240 kilomitir jirto Suqadra ayaa waxay ahayd buu oranayaa fariisin amba goob diinta aad looga adeegsado jasiiradda maadaama cariga Soomaaliyeed ay u dhowdahay gaar ahaan Gardafo amba Xaafuun iyo Qandala iyo bariga fog waxa uu oranayaa waa suurtagal aad u weyn inay cariga Soomaaliyeed ama deegaanka Soomaaliyeed ay ku soo fiday muddo badan horta ma sii jirin oo diintii Islaamka ay baaba cariga Soomaaliyeed soo gashay oo diinta Islaamka markay cariga Soomaaliyeed soo gashay ama deegaanka Soomaaliyeed waa markii ayna aragtiyaha qaar waxa qaban ayna Madiinaba gaadhin inkastoo firidkeegu amba faafkeegu ahaa mid aad u tartiib aad u daciifa oo aan degalka Soomaaliyeed oo dhan amba dadka Soomaaliyeed oo dhan si mugle ugu faafin oo muddo badan bay qaadato oranaya ilaa 8 qarniya qodobo badan buu ku tilmaamayaa in ay hakiyeen
faafitaanka diinta islaamka oo waqtiga faraha badan ay qaadatay oo ah Soomaalida dhaqankeedu ah dhaqan reer guuraannimo oo aan meel kaliya ku nagaan taasna ay adkaanayso oranaya wadaadadii Carbeed amba wadaadadii Soomaaliyeed inay aqoontii diinta amba dacwadii diinta ay sii faafiyaan inkastoo markii dambe ay u soo saareen oranaya techniques ah xirta in halkii reeraha Soomaalidu ay daaq iyo biyo ay xoolahooda u geeyaanba ay xirtu ay ka daba tagto taasoo noqotay wax runtii lagu aflaxay kana qayb qaadatay fiditaanka diinta islaamka wadaad buu ku soo qaadaya British iyo damcay inuu diinta Christianity-ga faafiyo oo markii uu fikiray ay u soo baxdayba nidaamkan xirtay wadaadadii Soomaaliyeed ay unkeen ay ku faafin diinta bal inuu isna mid la mid oo reeraha dhex galo oo kolba meeshay degayn uu tago si uu faafiyo diinta Christianity-ga runtii waxte faafa may noqon amba falcelintii Soomaalidu ay ka falcelinsan waxa runtii mid wadaadkaasi ku qanacamaayeen oo waa malato koray kamanuuna helin fariisin uu ku faafiyo diinta marka diimahaas uu ku soo koobaya saddexda diinood ee samaawiga iyo diintii Soomaaliyeed ma oran kara maadaama diin ay Soomaalidu iyo dadka la isirka oramada marandhiilaha Kenya ku nool oo runtiiba randhiilaha kale iminka ay ku sii hadhayba diintan adeegsigeedu amba faafitaankeeguba xageennana wayba ka dabargo'do waxayba ku soo hadhay magaalooyinka aynu sheegnay qodoban yar raacin lahaa aanan kuna soo gabagabayn lahayo Soomaali haday aynu nahay iminka culays intee leeg bay inagu haysaa sheegashada Carbeed ay Soomaalidu sheegataa mid diidaysa ma aha in odaya Carbeed ay jireen mid diidaysa ma aha in dad carabta u nisba sheegtaa ummadda Soomaaliyeed ay ka mid yihiin kana tirsan abtirsiintooduna ay sax tahay laakiin su'aasha la isweydiin karaa Soomaalidu dhani ma carabba taasaa su'aal in laga jawaabo mudan laakiin culayska ay Soomaali ahaan inagu leedahay sheegashada ummadda Carbeed aynu ku sheeganana amba ummada kaleba hadii ma la sheegto culays intee inagu leedahay inagoo og hadaad ummad u nisba sheegato ay keenayso culays siyaasadeed iyo culays dhaqaale iyo culays waliba bulsho ay wadanka ay ma ku keenayso ta siyaasadoo kale waxaad ku qasban tahay maadaama aad ummadda aad u nisba sheegatay aanad kana mid tahay aad una damqanayso dhib kastoo ku dhacda in dhammaan siyaasadahooga adigu aad ka qayb noqoto dhammaan dhibahoogana aad ma ka qayb noqoto takoorna aad kala kulmi karto dadkii aan iyaga ahayn kula jaarka ahaa inaguna waxaynu ku naalnaa cirifka wadanka Carbeed oo dad kale Afrikaana amba dad kale inala deegaana inala jaara taasina culays badan bay ummadda Soomaaliyeed ay soo gaarsiisay waxaanad ka garan kartaa markii taliskii taliyaha wadanka ka talinayay uu go'aansaday inuu Soomaalida ku daro Soomaalida iyana oo Soomaalida siyaasiga hay'adda bariga jirtay uu ku daro wadam ururka ay midnimada Carabtu ay leeyihiin ay keensatayba culays fara badan oo kaga yimid wadankii dhinacii wadamadii reer galbeedka iyo dhinacii waliba Afrikaankii aynu jaarka nahaynba dad badan oo qoraayna waxay sheegaan ku biiritaankaasi inuu ahayn ku biiritaan ummadda Soomaaliyeed oo dhani ay wada taageersanayeen laakiin waxa ku biiritaan siyaasiyo uu doonay inuu taliska xilliga jiray uu ku daboolo culayskii badnaay uu diinta islaamka saaray amba wadaadadii uu saaray Soomaalidana uu dhinac uu makaga dhaadhiciyo mid kamida himilooyinkii qaar idin kamid ay ku taamiyeen ban idin xaqiijiyo maadaama carab ay sheeganayeenba imika waxaynu ka mid noqonaa golahoogii kulankoogiiba jaamacadda carabtana xeer baaba jiro ah wadanka ku soo biiraya waa inuu majority-giisu ay isir ahaan ay u nisba sheegtaan amba ay yihiin carab taana inagu qodob aynu xaqiijin karana maaha laakiin culays badan oo siyaasadeed oo wadamadu ay ku fuliyeen ayaa laynagu aqbalay marka ku biiritaankeena amba carabnimadeenu waa carabnimo siyaasadeed ban qabaa inuu qorahan taageersanahay waa carabnimo siyaasadeed carabnimo isir ma aha waana fikradda guud ee buugu xambaarsan yahay runtii intaasan ku soo koobi lahaa oo akhrinteedii buuga laakiin waa buug miirkii ummadda dib ugu soo celinaya iyo isir sheegashadii ahaa in dadkanu deegaankan ay abiyo isirba ay u leeyihiin oo ayna ahayn dad soo tacabiray aad baad u mahadsantiin liban aad baad mahadsan dabcan sida quruxda badan aad soo koobtay qaybta rumaynta Soomaaliyeed ama isirka Soomaaligii wixii uu aaminsanaa
islaamka ka hor iyo sidii dabcan quruxda badneed ee marka dambe uu diinta islaamka u qaatay uguna faaftay diinta keliyatana ay noqotay bulshada Soomaaliyeed maanta boqolkiiba boqol alxamdulillah ay ku faanto qoraagu dabcan isagoo saddex qaybood isku xidhaya ayaa wuxuu isweydiinayaa iyadoo ay intaa soo jireen oo ay dad intaa deegaan ku dhaqan ahaayeen oo isirkaa leh oo insaa soo noolaa miyayna jirin markaa haddeed inay ilbaxnimo ka hana qaada deegaanada sidaa daraadeed qodob kale ayuu kusoo gabagabeynayaa buuggiisa oo uu bixinayo cutub gaara uu kaga sheekeynayo ilbaxnimadii Soomaaliyeed markaan leenahay ilbaxnimada Soomaaliyeedna kama warramano ilbaxnimada sidaad u dhigtay ereyga Soomaaliyadan siyaasiga ah ama koobneed laakiin wuxuu sheegay ereyga isirka Soomaaliga ilbaxnimadiisa hore marka hore dabcan wuxuu leeyahay miyaynan ilbaxnimo ka hana qaadin boqolkiiba boqolna saas qoraagu xaglinayaayo wuxuu ka hadlinayaa dhagaxaan iyo aataar iyo wixii soo jireenka ahaa ee sooyaalka ahaa ee ummadani lahayd waxayna ka soo baxaya marka dambe runtii in ay ilbaxnimo facweyni ka hana qaaday maanta dabcan meel ay maraysaba ama marxaladihii kala duwanaayay soo martay maanta haba gaadhay waxaad moodaa in uu jiro dareen ah inuu qofku liidayo oo aanu isku quudhaynin inuu deegaanka ku noolaa ilbaxnimo intaa laga noolahaa laakiin taana wuxuu qoraagu ku cabirayaa inay ahayd dareen lagu abuuray guud ahaan Afrikaanka iyo bulshooyinkii la gumaystaba oo ay inay yeesaan wuxuu yeesaan mar kasta ay cid kale wixii ay ku faanaan laakiin shaki male oo aathaarta laga qoday deegaanadana intan 2000 wixii ka dambeeyay dhowr wixii qarnigii hore tagay iyo wixii hore dhammaan oo buugu dabcan si qoto dheer uga sheekeynayo aataar goobo kala duwan oo bari ilaa galbeed laga dareemayo in ay muujinayso dadka inay lahaayeen dad xadaarad aad u xeel dheer marka uu leeyahay ereyga xadaarad ama ilbaxnimo la leeyahay wuxuu leeyahay inta badan xagga qoraagu xagga magaalnimada u baahantay laakiin haddii bulsho laga helo habnololeed deegaan rasmiya laga heli karo habnololeed gaar ay leeyihiin oo ay yeeshaan in laga heli karo ilaalinta ama inay مثلا ay gaaraan xataa marxalada ay birta dhalaalin karaan inay gaari karaan marxalada ay far qoraal ay yeeshaan oo xataa qoraagu waxaad ka dhadhansanaysaa hadalkiisa in qoraaladan imika hadda jira ee far Soomaaliya ka hor in مثلا sumadihii iyo kale ay u dhigmayeen marka qaasad dhadhansanaysaa adu ay u dhigmayeen ba kuwa qoraalka oo noqonayay qoraal ay lahayd bulshadu ay lahayd oo soo jireen laakiin maanta daynagu aynaan dhadhansan kareenin waxaad dareemi kartaa astaamaha ilbaxnimo ee uu cuskanayo qoraagu waxaad ka dareemaysaa in ay jireen مثلا xiriir ganacsiyo in lahayn bulshooyinka adduunka caalamka oo dhanba ilaa bariga fog laga gaarayo Ciraaq iyo Mesopotamia iyo bariga waxa weeye maxaadana fog iyo Masar iyo Yurub iyo dhamaan baddaasi noo ahayd gacanka Berbera oo ahaa ama dabcan islaamka loo yaqaano gacanka caadimeed oo ahaa marinka adduunka aynu waxa weeye aynu la wadaagno soo kale waxa aad bulshadu ugu caan ahayd Soomaalida dhexdeeda badmaaxnimada iyo waxa weeye naaqodanimada oo xirfad cajiib oo ay lahaayeen ahayd Soomaalida oo aad garanayso bulsho dhan oo inta leeg wax la wixii kaabayaasha cuntadeeda uga baahnayd iyo kaabayaasha nolosheeda kale uga baahnayd ama bir dhalaalin ha noqoto waxa weeye dhagax qorka iyo geed qorka dhamaanba oo agabkii guriga u baahnaa iyo deegaanka u baahnaaba ay kala soo baxayeen deegaankooga dabcan waxay ahayd ilbaxnimo deegaankooga ku beeskaraysan ama ku salaysan isla markaana magac iyo muuqaalba ku dhex lahayd soo kale dabiibka iyo isku tacaalka ama dhirta ama diinta xataa oo labada dhinacba ilaa laga soo gaariyo marxaladii inta soo jireen ay la helayay dad xataa ku xeel dheer ku dabiibitaanka wixii waxyaabaha diintu dhigayso dabcan islaamka xataa ka hor iyo waxa weeye iyo dhireedkaba ama wixii dhiroonka ah ee ku beeskaraysan ama ku salaysan deegaankooga runtii waxa ilbaxnimo aan maanta qofku aanu suuraysan kareynin inta waxa dheer oo maanta aynu dhaasan karanaa kuwaas waliba waxde loo soo joogay waxa maanta la soo gaarayo la arkay in aataarta kala duwan ama aataarta kala duwan ee laga qoday godadka kala duwan ee dhulka Soomaalida ku baahsan ay muujinayaan in deegaanadan ay ku noolaayeen bulsho fac dheer oo ilaa hadda xataa adarka soo dhagaxyo ama saddex qaar dad dhinac kaga sawiran yihiin dhinac kale xayawaan kaga sawiran yihiin haddana isku hal dhagaxa oo aad moodo fariinta la gudbinaya ahayd in deegaankan ay ku noolaayeen dad intaa leeg qoraagu waxaad moodaa inuu xoog yara saarayo in uu xataa ilbaxnimada ay beera falashadu kaga soo horeysay tan kale xoolo raacatada oo uu dabcan qoraagu halkaa uu ku sababay in midxinku
ama bixinka laga helay xabaalo maguurta oo soo jireen ahaa sidaa daraaddeed uu qoraagu bidayo in deegaankan uu ahaa deegaan barwaaqo ah guud ahaan cuntada badankeygana lagala soo baxayay xagga beeraha bixinkuna uu ahaa dee mashiin keliya tay ridqayayba ama budlinayay dhammaan waxyaabaha ay cunto ahaan u quudanayeen bulshada Soomaaliyeed laakiin beer falashadu markii deegaanku isbedelay ee cimilo doorsoonku yimiday ay noqotay in xagga kale loo wareego oo loo wareego maxay xagga xoolo dhaqatada haddaynu soo yaro ku soo dhawaano qoraagu wuxuu aad liis dhan u taxayaa waxyaaba taabanaya waxa weeye dee sida Soomaalidu ganacsiga ay u lahayd aan sheegayno xiriirka ganacsiga la lahayd adduun weynaha oo aad moodo in la dhoofinayay ama ay tahayba in la dhoofinayay xabagta iyo beeyada iyo fool maroodiga iyo muxuu ahaa qolofta diinka iyo malmalka iyo meediga iyo waxaasoo dhan baa ahaayeen wax maanta deegaankani ku hacaano oo adduunka u dhoofin jiray isla markaana la ari karayo maanta haddii aahaarta weliba lasii baaro kuwan qolya Faransiiska taabteen iyo Sacda Mire oo soo xusayo qoraagu iyo kuwii ka horreeyayba ay muujinayaan in waxa weeye la heli karayo maanta waxa weeye aahaar muujinaysa in dadkani ku ahaayeen kumaan sannadood ka hor ay degaayeen magaalooyin burburkoogii la hayo goob xabaaleedyo maanta waxa weeye taagan oo la ari karayo xarar godeedyo lagu ari karayo waxyaabihii lagu xardhay oo xilliga dib loo raaco kumaan kun oo sannadood la gaari karayo wadooyin iyo jidad aan weligood cidi marin oo buuro fananaya oo deegaanadeena meelo badan ku caana oo qoraagu dabcan uu liis ku taxayo dhammaantoodba waxay muujinayaan in deegaankan uu ahaa dad ilbaxnimo dheer inay ku noolaayeen waana aragtida isku kabasa dhammaan qodobadii hore ee ay walaalayaashay ama walaalahay ka hadleen dabcan markaa waxaad dareemaysaa afartaa qodob ee kala duwan ama siyaabaha aynu uga hadalnay ama buugga aynu usoo koobnay inay dhammaantooda marka dambe ay isku soo biirshubanayaan in dadkan Soomaalidu ee deegaankan leeyihiin weligoodna ku onkanaayeen halkan Ilaahay ku abuuray isla markaana fikradda aynu xoojinayno in aan wax tacabir leeyahay oo Soomaali inay meel kale ka soo guurtay aanu jirin Soomaalidu halkan deegaankooda uu ahaa halkana ay weligoodba ku noolaayeen xadaaradaasi iyo dhaqannadaasina ay ka onkameen waana fariinta aad moodo inuu finally ama guud ahaan buuggu xambaarsan yahay guntii iyo gabagabadii waxaan isleeyahay buugga dirkiisa camaalada waa buug mudan inaad nala akhridaan isla markaa asxaabta kale aanu gaarina maanta inuu gaaro ay mudan tahay dabcan hadda suuqa waxa yaala waa soo saarista saddexaad ayaa maanta suuqa taala waxaa laga yaabaa in malata afraad ka hor in hore loo gaari waayo malata afraadna dabcan suuqiisu aad buu u wanaagsan yahay asxaabta daawanaysa iyo guud ahaan martida kale ee maangodol ku xidhanba xalqadii tobnaad ama fadhigii tobnaad iyo wada akhriskii aan idhaaho buuggii dirkiisa camaalada ee uu qoray Axmed Alaan Cawaale intaasaan kusoo koobi doonaa inta maan gaajaysan yahay guuli waa wali. Assalaamu calaykum.